سلام كدب مقعيق وثابت عبدي محمد مقع هويدي وشمسو علي توحو نحريستي جنة الله كورابيو وحان هاي آبي شن عرور له انت أنا أقود بين برنامج كيغا يمشرح لماذا وحان ربا إنان دارين كيغا كوبيريو إنان آد وقحو هاي هذا الجيدين تمانتا خوش الدور شوينكا يوحك السعود سعودو إن دادك أن قاركود أي جدادك كحرينيهين يسوسعون كرين سوابتان ومانت هالكان أوجيغنو وحان الله كبريا إن يسنقو صلى من مركلة أنه هذا الجيدين إن دادك إن أي دب نغتر صدان وأي جدك السعون كرين وأي كل دب قبان إلهي إذن كيسنو وحان كبريا أنه صلى نقون مدى مركلة انت كدب وحان هاي مشرح مدحويني وتاغن إنه قبط حلك مدحوينها جمهورية فدرالك الصوماليات وتاغن هرتي إن بارلمانك جمهورية فدرالك الصوماليات مسؤول كأهم مسيرك ومدى الصوماليات وحان دي ويدي سنة يا كالسواني دي عدكينا سياد يقو آمنتان سببها سوا صعودة أوجيت إلهي مهدي وحان فرصدو هلي قرنك الصوماليات إنان نقصو أديقو سدحي أدود أو كلا دوان وحان صون نقضي أقاسمة كحيجينك مدحتويدة جمهورية فدرالك الصوماليات وحان نقضي كسمة أقاسمة مدحتويدة جمهورية فدرالك الصوماليات هلكا صوءة هلكا أتكاركي سيد أهمية إلا هاي وضع شقينتا تابقلينتا هي أدها كلا دوان الدولة دا هدي أي نقول لهيد هي أدى ما أنت أنهر جوغي إلا بضا قولي بارلمانكا هدي أي نقول لهيد هي أدى قرصوركا iyo hadii ay noqon lahayd xukuumadda oo fulinta kamid ah xafiiska madaxweynaha qayb kamid oo fulin ah taa waxay ii suurta gelisay inaan khibrad iyo waayo aragnimo u helo halka dalka looga taliyo iyo ahmiyadda ay leedahay wada shaqaynta hay'adaha kala duwan waxaan ahay qof system ku shaqeeyo meel kasta oo ka soo shaqeeyna uga tagay raad la raaci karo qof walbana tilmaamsan karo raadka waxa kamid ah maanta qof walba wuxuu maqlaa shaqaalaha rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliyeed ilaahay mahadii waxay ku suurta gashay markii aan ahaa agaasime ku xigeenka madaxtooyada oo aan suurta galiyay in xafiiska ugu sareeya dalka uu horkaco furana u noqdo shaqaalaha inay noqdaan kuwa xaq leh xuquuq leh aanan lagu xadgudbi karin ilaahay mahadii hay'adaha kale oo dhanna way dhameystirmeen shaqaalahana maanta waa kuwa rasmiya xuquuq leh laguna xadgudbi karin inta kadib wuxuu ilaahay fursad ii siiyay inaan Soomaaliya ugu soo adeego dhanka diblomaasiyadda waxaan noqday safiir ku xigeen iyo qunsul safaaradda Soomaaliya ee Washington DC ee dalka Mareykanka halkaas oo sidaan ognahay ah marinka ugu weyn diblomaasiyadeed ee dalka oo aan ka soo fahmay halka ay ka liidan karto siyaasaddeena arrimaha dibadda iyo duruufta haysato diblomaasigeena ku nool dalalka caalamka ee u baahan xog iyo sidoo kale kaabidan walbaba ah inta kadib wuxuu sidoo kale Allah subhanahu wa ta'ala fursad ii siiyay inaan dalkayga ugu soo adeego labadaas mas'uuliyadeed kadib inaan noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho taa oo ayadana ii suurta gelisay inaan ogaado khibrad ka soo qaato daadajinta awoodaha iyo sidoo kale uu adeegida kuwa bulshada ugu mudan ee aan soo gaari karin madaxda sidaa darteed halka waxaan ka suurta geliyay maadaama aan ahay qof system in lagu shaqeeyo maamul wanaag oo aan raad fiican kaga tagay anigoo kaalin siiyay qaybaha kala duwan ee bulshada fursadna u furay ummadda Soomaaliyeed oo dhan hadii ay noqon lahayd gabar iyo wiil raadkaas wuu muuqdaa ma ahan kaliya mid hadal ku kooban sidoo kale maamul wanaaga ku aadan dhaqaalaha ee aan ka hirgeliyay gobolka Banaadir waxaan maanta ku faanayaa farxad ii ah ilaahayna i waafajiyay in markii ugu horeysay oo aan noqday duqa magaalada ee Soomaaliya markii ugu horeysay aan u sameeyay waji Soomaaliyeed oo caasimadii ay matalaan masiirkeeda u fariistaan Soomaali oo wada dhan oo aan qofna ka maqnayn taa waxay runtii dhiirigelin u qotay dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ay u dirtay fariin dib u heshiisiineed taasoo ah caasimadda dalka waxa ay tahay waxay ku dhisantay wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxayna ku dhismi kartaa wadajirka ummadda Soomaaliyeed inta kadib marka aan inta xildhibaanada sharafta leh waxaan idinka codsanayaa in idinkoo eegaya khibradda iyo inta aan soo maray iyo jiilka maanta u baahan inay horu kacaan in aad
idinka codsanaya inaad igu aamintaan ama aad isiisaan codkiinna idinkoo eegaya nuqulka hortiinna yaallo ee ah qorshe siyaasadeedka oo ka kooban oo la yidhaahdo toddobadaas hortabin oo kale ah waxaa sal u ah dan guud iyo dowladnimo waxaa jihayn u ah oo lagu shaqayn doonaa jiha cusub iyo jiil cusub waxay yihiin waa sharxi doonaa ilaahay idinkii toddobadaa waxaa ka mid ah toddobada hortabin heshiis bulsho iyo nidaam dowladnimo loo dhan yahay difaac qaran iyo amni buuxa siyaasad arrimo dibadeed ee ku dhisan iskaashi iyo horumar caalamiya nidaam dhaqaale ku dhisan suuq xor ah cadaalad iyo garsoor madax bannaan garowsi iyo go'aanka gaarid qadiyadda Soomaaliya iyo Somaliland ugu dambeyn adeeg dawlad iyo maamul wanaag inta khibrada aan sheegay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku leeyahay inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana samii'an basira ayada ilaahay wuxuu ku koobayaa dadka ehelka u ah in loo dhiibo lagu amaaneeyo mas'uuliyadda oo khibradeeda leh oo shaqadeeda qaban kara in lagu amaaneeyo sidoo kale ilaahay ayada quraanka wuxuu ku sheegay ilaahayga wax walba og hadii ay tahay maqal iyo aragba wuxuu quraankiisa ku sheegay ilaahay marka aad xukun sameeynaysan cadaalad fala taa oo macnaheedu la xiriirto hadii aad amaanada ku amaanaysanaysaan qof ahligeeda ah haddana dadka amaanada sameeynaya inay u cadaalad falaan dadka ay u sameynayaan inta kadib labadaas sifo ee muhiimka ah hadii ay noqon lahayd midda u cadaalad falidda iyo hadii ay noqon lahayd midda ehelkeeda qofka ah waxaan inta sii raacinayaa mudanayaal iyo marwooyin waxa sharafi ah inaan idin soo bandhigo barnaamij siyaasadeedkii hadda aan kor ku sheegay kaasoo ah dan guud iyo dawladnimo anigoo oo maanka ku haya dhammaan maraaxishii la soo maray macaan iyo qaraarba fursadihii la haystay ee qaar la dayacay fursadaha in hor yaalla maanta iyo muhiimadda maalinka 15 May oo ku astaysan guusha gobonimada iyo awoodda Soomaali u leedahay meelmarinta doonista danaha dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan go'aanka da'yarteena waxaan ku qodobeynayaa hadal jeedinteeda qodobada soo socdo kow waa maxay jiha cusub maxaan ula jeedaa sloganka jiha cusub Soomaaliya waxay u baahan tahay jiha cusub jihadaas oo ah dib u xoreyn oo laba qaybood ah midda koowaad waa amniga Soomaaliya waxay u baahan tahay hoggaan ku dhac leh aan baqaynin naftiisa u huri karo ummadda Soomaaliyeed la geli karo dalkana oo la xoreyn karo siyaasadda amniga waxaa sal u ah cadaalad iyo sidoo kale dib u xoreyn lagu sameeyo hanaanka garsoorka ee dalkeena hay'adaha kala duwan ee aan ka soo shaqeeyay waxa ay suurta gashay halka ay Soomaaliya dhibta ugu weyn ka haysatay inay tahay nidaamka garsoorka iyo cadaaladda kaasoo u baahan in la taabageliyo la dhameystiro sidoo kale la xaqiijiyo in qof Soomaaliya uusan taban wax cadaalad darra oo dawladda ay mas'uul ka noqoto in cadaalad darrada wax laga qabto amniga mudanayaal iyo marwooyin arinta amniga insha Allah hadii aad fursad hogaaminta dalka aad ugu aamintaan waxaan hortabinta koowaad har iyo habeen siin doonaa aan la dagaalanka argagixisada iyo xasilinta dalka annagoo u marayna xaqiijinta dhaqangalka qorshaha xoreynta dalka muddo kooban gudaheed xaqiijinta iyo gacan ku haynta deegaanada la xoreeyay iyadoo loo diyaarinayo dhammaan adeegyada asaasiga sida dawladda hoose maamul iyo adeeg bixin boolis garsoor iyo adeega cadaaladda waxbarashada iyo xarumaha caafimaadka ma ahan kaliya hadal waa ficil qofka marka uu soo maray hay'adaha kala duwan wuxuu ogyahay markii la xoreeyo meel adeegeedu u baahan tahay haday tahay cadaalad iyo adeeg kale bulshadu u baahan yihiin iyo midda ah cidda Soomaaliya qayb kaga noqonayso caawinta arrimaas amniga caasimadda mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaan ahaa duqii magaalada Muqdisho iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir waxaan marqaati ka ahay nolosha xildhibaanka qaran ee Muqdisho ku nool iyo sida amniga ugu yahay muhiimadda koowaad iyo xaaladaha adag oo ay la kulmi karaan xildhibaanada iyo shacabka taas oo u baahan wax ka bedel weyn mudanayaal iyo marwooyin haddii aad doorataan waxaan dhiirigelin doonaa in magaalada Muqdisho yeelato qorshaha amniga caasimadda iyo ciidamo gaar ah annagoo kala shaqayn doono madaxda gobolka hirgelinta qorshahaas oo aan xog muhiim ah iyo qorshe dhameystiran ka hayo dhinaca horumarinta dhaqaalaha mudanayaal iyo marwooyin waxaan dardargelin doonaa isku filnaanshaha dhaqaale ee bulshadeena
kor u qaadista wax soo saarka dalka iyo ka faa'iideysiga kheyraadka alla noogu nimceeyey dhaqaale lama samayn karo amni lama samayn karo adeeg lama samayn karo haddii aanan la helin cadaalad iyo garsoor hufan Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay waa garsoor hufan iyo dib u xoreyn lagu sameeyo argagixisada ee xag jirka ah horumarinta arrimaha bulshada mudanaal iyo marweyn waxaan tayeyn doonaa adeegyada waxbarashada tacliinta sare annagoo dhallinyaradeenna ku qalabeyn doona xirfadaha casriga ee waxbarashada teknoolajiyadda iyo dhaqaalaha waxaan mideyn doonaa siyaasadda tacliinta sare ee dalka annagoo dhisayna waxbarashada hoose si midaysan oo isku xiran oo federaali ah shaqo abuurka dhallinyarada oo noqonaysa xirfadlayaal hela goobo ay ka shaqeeyaan iyo inay abuuraan ganacsiyo ay ku midaysan yihiin iyo sidoo kale mustaqbalka gaari kara inay iyaga noqdaan kuwa shaqada bixinayo caafimaadka waxaan abuureynaa xarumo caafimaad oo degdega iyo kuwa isbitaalla ayadoo saldhig u noqon doona siyaasadda caafimaadka heer federaal ah oo gaarta ilaa ay tuulo leh tayo fiican laga bilaabo dhallaanka iyo waayeelka dhab u wada hadalka iyo nabadaynta Soomaaliya waxaan furi doonaa insha Allah dhabo lagu wada hadlo dhamaystirka dastuurka iyo sidoo kale wada hadallada iyo go'aanka gaarista qadiyadda Soomaaliya iyo Somaliland taa oo loo mari doono laab xarnaan cadaalad iyo wax aan daah ku qarsoonayn oo Soomaali wada ogtahay sidoo kale waxaan qayb xoog saari doonaa tabashooyinka ka dhasha doorashada kadib wax la yiraahdo post election reconciliation dib u heshiisiin doorashada kadib ee dadkii wax tabanaya siyaasadda arrimaha dibadda waxa astaan noo ah arshaha siyaasadda aan ku shaqeynayno siyaasaddii arrimaha dibadda ee Allah u naxariistay madaxweyne aadan cabdulla cusmaan oo ku salaysneed halbeega ah sida ay siyaasaddeena arrimaha gudaha u taalo ayay siyaasaddeena arrimaha dibadda u muuqanaysaa waxaan la iman doonaa siyaasad arrimo dibadeed ku dhisan danta dadweynaha Soomaaliyeed taariikhda ummadeenna iyo timaadada jiilkeena waxaan jiha cusub u furi doonaa siyaasadda arrimo dibadeedka waxaan jiha cusub u furi doonaa siyaasadda arrimo dibadeedka muddo taas oo ku salaysan danta caamka oo ka fog dan shakhsiya iyo iskooxaysi ugu dambeyntii mudanayaal iyo marwooyin jiilka cusub iyo jihada cusub haddii aan si kooban u fasiro barnaamij siyaasadeedkeena waa mid ku dhisan jiilka cusub oo aan ula jeedno awoodda dhallinyarada awoodda haweenka iyo awoodda shacabka annagoo xusuusanayna qiimaha maalinka weyn ee 15 May maalinkii dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in jiilka cusub ee dhallinyarada xildhibaanka iyagoo kaashanaya gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka ee jiha cusub u jihayn doonaan siyaasadda dalka 15 May waa maalin magac iyo madal u leh maalin magac iyo madal leh taas oo aan alle ka rajaynayo Soomaaliya oo mar kale noqon doonto oo samayn doonta taariikh hor leh waxa ii muuqato in aan dhammaan ka tagi doono taariikh dhaxalgal u noqota dhallaanka Soomaaliyeed ilaahay idinkiisa shalay haddii aan cudurdaar ka dhigan jirnay odayaasha ayaa waxay noo jiheeyeen maanta mustaqbalka iyo masiirka Soomaaliyeed waxay agtaalaa jiilka cusub oo dhalinyarada ah ilaahay idinkii waxaan ka rajaynayaa inay Soomaaliya nasri cusub jiha cusub jiil cusub iyo nabad cusub u furi doonaan eebaha ina guuleeyo barnaamijkeena ha guuleysto jiil cusub iyo jiha cusub wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh